Assalaamu calaykum. Ujeeddada ugu weyn ee uu Alle Subxaanahu wa Tacaala inoo abuuray waa in aan isaga caabudno oo aan ateecno. Wuxuu Alle Subxaanahu wa Tacaala bani aadamka siiyey ikhtiyaar uu qofkii doono ku shukriyo oo qofkii doonana uu ku kufriyo. Mana jiro shay shaydaanka uga caro badan in uu arko qof cibaado badan oo noloshiisa oo dhan u hibeeyey cibaadada Alle Subxaanahu wa Tacaala iyo taacadiisa. Wuxuu shaydaanku juhdi adag iyo waqti badan ku bixiyaa in uu keeno xeelado iyo khiyaanooyin iyo hagardaamooyin uu ku luminayo qofkaas cibaadada badan. Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa mid ka mid ah qisooyinka ugu layaabka badan ee aad maqasheen noloshiina, taasoo ah nin 60 sano Alle caabudi jiray oo markii dambe shaydaanku uu dhagar ku sameeyey. Haddaba maxay ahayd dhagarta uu ku sameeyey? La soco qisadan layaabka badan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Waxaa jiri jiray nin raahib ah oo ka mid ahaa reer Banu Israa'iil oo lagu magacaabi jiray Barsiisa. Wuxuu ahaa reer Banu Israa'iil qofkii ugu cibaadada badnaa, uguna Alle ka cabsiga badnaa, uguna taacada badnaa. Salaad iyo cibaado mooyee shaqo kale ma uusan qaban jirin. Sidaas darteeda ayuu wuxuu dhistay mawlac uu Alle Subxaanahu wa Tacaala ku dhex caabudo oo ka fog dadka iyo mashquulka adduunyada. Waa uu ku dhex ictikaafi jiray salaad iyo cibaado ayuuna waqtigiisa inta badan ku dhammaysan jiray isagoon marnaba ka mashquulin. Wuxuu halkaas ku cibaadaysanayay 60 sano isagoon daqiiqadna Alle ka mashquulin oo aanan marnaba ku caasinin. Shaydaankuna lacanahullah marnaba ma uusan joojinin inuu isku dayo inuu waswaasiyo raahibkan oo uu Alle ka mashquuliyo oo uu ka jeediyo cibaadadiisa. Balse raahibkan ma uusan dhagaysan shaydaanka warkiisa oo kama uusan yeelin ilaa uu shaydaankuna ka daalay. Markaas buu shaydaanku aad uga carooday iimaankiisa xoogga badan awgii. Wuxuu Ibliisku kulmiyey dhammaan shayaadiintii isaga taabacsanayd kuwooda ugu daran. Wuxuuna ku yidhi, ma idinku jiro miyaa qof awooda inuu raahibkan lumiyo oo iigu laab qaboojiyo? Qofna uma jawaabin markii laga reebo shaydaan lagu magacaabo Abyad oo yidhi aniga ayaa baadiyeynaya. Markaas buu shaydaankan isku soo ekaysiiyey suurad bani aadam oo kale. Kadibna wuxuu aaday raahibka mawlaciisa isagoo iska indhatiraya raahibkan dabeecadihiisa. Markaas buu u yeeray oo ku yidhi, yaa Barsiisa, yaa Cabdallah. Balse uma uusan jawaabin. Barsiisana salaadiisa kama uusan soo jeesan jirin markii laga reebo in 10kii maalinba hal maalin uu soo jeesan jiray. Sidoo kale wuxuu soomi jiray 10 maalin oo isku xigta, 10kii maalinba maalin ayuu afuri jiray. Marmarna wuxuu soomi jiray 20 maalin ama ka badan. Shaydaankii laciinka ahaa markii uu arkay in Barsiisa uusan u jawaabaynin, wuxuu go'aansaday inuu dhagartiisa sii wato. Wuxuu bilaabay inuu ku tukado oo uu ku cibaadaysto mawlacii Barsiisa ama raahibka hortiisa. Barsiisa markii uu ka baxay salaadiisa wuxuu arkay nin aad u muuqaal iyo labis qurxoon oo si wanaagsan oo raahibada lagu yaqaanay ugu tukanaya mawlaciisa hortiisa. Markaas buu ka shallaayay inuu u jawaabi waayay. Markaas buu ku yidhi, nin yahow, maxay tahay xaajadaada? Wuxuu shaydaankii ugu jawaabay, waxaan doonayaa in aan kula joogo oo aan edebtaada iyo cilmigaaga barto oo aan cibaadada isku kaalmaysanno. Barsiise wuxuu yidhi,
waan mashquulsanahay. Kadibna salaadiisa ayuu isaga laabtay. shaydaankiina wuxuu sii watay dhagartiisa, wuxuu isna ku laabtay salaadiisa. barsiise markii uu salaadiisa dhammaystay ayuu soo jeestay oo wuxuu arkay in ninkii uu weli ku tukanayo mowlaca hortiisa. markaas buu la dhacay oo ka helay dadaalkiisa iyo cibaadadiisa. wuxuuna ku yidhi, nin yahow, xaajadaadu waa maxay oo maxaad doonaysaa? wuxuu yidhi, waxaan doonayaa in aad ii oggolaato in aan kuu soo galo. markaas buu barsiise u oggolaaday. wuxuuna shaydaankan barsiise la joogay muddo sanad ah, isagoon afuri jirin ilaa 40 maalinba hal maalin mooye. salaadana kama uusan soo jeesan jirin ilaa 40 maalinba hal maalin mooye. barsiise markii uu arkay sida uu ninkan cibaadada ugu dadaalayo, wuxuu dareemay in uu isagu cibaadada ka gaabiyey. wuxuuna mooday in ninkani uu ka fadli badan yahay. markaas buu shaydaankii barsiise ku yidhi, waxaan aqaanaa duco uu alle ku caafiyo qofka xanuunsan iyo dadka jinka qaba iyo dadka waalwaalanba. markaas buu ducadii baray, kadibna waa uu sagootiyey oo waa uu ka tagay. markaas buu shaydaankii isagoo ordaya u tagay ibliiska, wuxuuna ku yidhi, wallaahi ninka waan soo halaagay. kadibna shaydaankii ayaa intuu baxay wuxuu u tagay nin kale oo aanan raahibka ahayn. markaas buu dhibaateeyey, wuuna jiradsiiyey ilaa jiradiisa ay ka darnaatay. kadibna isagoo iska dhigaya qof raahib ah ayuu u tagay ninkii jiranaa ahalkiisa, wuxuuna ku yidhi, saaxiibkiina waali ayaa haysa, ma idiin daaweeyaa? markaas bay dhaheen, inoo daaweey. markaas buu yidhi, jinkiisa kama adki oo waa uu adag yahay, balse qaada oo barsiise u geeya. wuxuu yaqaanaa magac alle subxaanahu wa tacaala oo haddii alle wax loogu weydiisto uu siinayo, haddii lagu ducaystana uu ajiibayo. waa uu idiin caafin doonaa alle idinkiisa. markaas bay bukaanka ciddiisa intay qaadeen barsiise u geeyeen. markaas buu ugu duceeyey isla ducadii uu shaydaanku baray. kadibna shaydaankii ayaa ka tagay, ninkiina waa uu caafimaaday. shaydaankiina wuxuu sii waday in uu sidaas dadka barsiise ugu soo diro. asna ducooyinkii ayuu ku akhrinayay, allena subxaanahu wa tacaala waa uu caafinayay. maalin maalmaha ka mid ah ayuu shaydaankii wuxuu u tagay gabar ka mid ah gabdhaha boqortooyada. waxaana gabadhaas la dhalatay 3 nin. aabbaheedna wuxuu ahaan jiray nin boqor ah. kadibna markii uu aabbaheeda dhintay, waxaa boqortooyada ka dhaxlay walaalaheeda. kadibna shaydaankii ayaa gabadhii intuu u tagay dhibaato u geystay ilaa ay aad uga xanuunsatay. kadibna wuxuu u tagay walaalaheeda isagoo iska dhigaya raahib ama wadaad wax daweeya. markaas buu ku yidhi, shaydaankeeda aad buu u madax adag yahay, kama saari karo, balse qaada oo barsiise u geeya, agtiisana ooga soo taga si markii uu shaydaanku qabtoba uu ugu duceeyo ilaa ay ka caafimaado. markaas bay ku dhaheen, barsiise inagama yeelayo in aan agtiisa uga soo tagno. wuxuu ku yidhi, mowlaciisa agtiisa uga dhisa mowlac kale, kadibna meesha ooga soo taga. waxaadna ku tidhaahdaan, ammaano ayay kugu tahay, ku xisaabtan. markaas bay u geeyeen barsiisa, waxayna ka dalbadeen in ay la joogto si markii uu shaydaanku ku soo degaba uu ugu duceeyo ilaa ay ka fiicnaato. balse barsiise waa uu diiday in ay la joogto. markaas bay mowlac kale uga dhiseen mowlacii barsiise dhinaciisa. gabadhii ayayna meesha uga soo tageen. gabadhuna waxay ahayd gabar aad u qurux badan. barsiise markii uu salaadiisa ka soo jeestaba waxay indhihiisu qabanayeen quruxdeeda iyo jamaalkeeda.
markaas buu shaydaankii u yimid oo qabtay ama ku soo degay. markaas buu barsiise salaadiisa ka soo jeesanayay oo u ducaynayay si ay u caafimaado. kadibna salaadiisa ayuu isaga laabanayay. kadibna shaydaanka ayaa mar kale ku soo laabanayay oo qabanayay, isagoo weliba dharka ka faydaya si uu barsiise ugu fidneeyo. kadibna shaydaanka ayaa intuu barsiise u yimid wuxuu ku yidhi, hooge, ku dhac oo ka sinayso. gabar la mid ah arki mayside, kadibna waad ka towbad keeni doontaaye. shaydaanka kama zuulin inuu waswaasiyo ilaa uu ugu dambayntii ku riday macaasida. kadibna uur ayay u qaaday. kadibna shaydaanka ayaa mar kale intuu u yimid wuxuu ku yidhi, hooge, waad ceebowday, maad dishid, kadibna waad toobad keenaysaa, mana ceeboobayside. haddii ay walaalaheeda soo laabtaan oo ay ku weydiiyaanna waxaad ku odhanaysaa, shaydaankeeda ayaa intuu u yimid qabtay ilaa ay naftu ka baxday. barsiisa waa uu ku qancay shaydaanka hadalkiisa cabsida uu ka qabay inuu ceeboobo awgeeda. markaas buu intuu dilay habeennimo ku duugay mawlac ciise agtiisa. markaas buu shaydaanku qabtay daraf ka mid ah dharkeeda ilaa qayb ka mid ah dharkeeda ay uga soo muuqanayeen ciidda korkeeda. barsiisena wuxuu ku laabtay salaadiisa. kadibna shaydaanka ayaa mid walba oo walaalaheeda ka mid ah wuxuu ku yidhi, isagoo riyo ugu tagay wuxuu ku yidhi, raahiibkii waa uu kufsaday walaashiina. kadibna markii ay uur yeelatayna waa uu dilay, wuxuuna ku duugay meel noocaas iyo noocaas ah. kadibna markii ay waabariisteen ayuu mid iyaga ka mid ah yidhi, wallaahi xalay waxaan ku riyooday riyo aan kala garan la'ahay in aan idiin sheego iyo in aan iska daayo. markaas bay ku dhaheen, inoo sheeg. wuxuu u sheegay wixii uu ku arkay riyada. markaas buu walaalkiisa kale yidhi, wallaahi aniguna isla riyadaas ayaan arkay. walaalkii saddexaad ayaa yidhi, wallaahi anna waan arkay. kadibna waxay dhaheen, wallaahi arrinkan bilaash ma ahan, waxbaa ka jira. markaas bay soo raadiyeen, kadibna waxay ku arkeen meeshii uu shaydaanku u tilmaamay. markaas bay intay barsiisa mawlaciisa burburiyeen, isagana intay qabteen xerxereen, kadibna waxay u qaadeen oo u geeyeen boqorka. barsiisana wuxuu qirtay ficilkaas aadka u xun. kadibna boqorka ayaa amray in la toogto. markii la xerxeray ayaa waxaa mar kale u yimid shaydaankii. markaas buu ku yidhi, ma i garanaysaa? wuxuu yidhi, maya wallaahi kuma garanayo. wuxuu yidhi, waxaan ahay saaxiibkaagii ku baray ducooyinka aad dadka ku dawaynaysay. miyaadan ilaahay ka baqayn oo aadan xishoonaynin? adigoo ah qofka ugu cibaadada badan reer banu israa'iil ayaad ficilkan xun samaysay. naftaadana waad ceebaysay, jariimadiina waad qiratay. wadaadada kaloo kaa dambeeyana waad ceebaysay. haddaad sida tan xun ku dhimatidna dadku gadaashaada wadaadada ma rumaysan doonaan. markaas buu ku yidhi, maxaan sameeyaa? shaydaankii ayaa ku yidhi, hal arrin oo keliya ayaad igu adeecaysaa, aniga ayaa kaa badbaadinaya. barsiise wuxuu yidhi, maxay tahay arrintaasi? wuxuu shaydaanku ugu jawaabay, hal mar oo keliya ayaad ii sujuudaysaa. barsiise ile waa qof tiir ku xiran oo la dili rabee, waa uu ka oggolaaday. markaas buu alle sokadiisa shaydaan u sujuuday. kadibna shaydaankii ayaa ku yidhi, barsiisow, tani waa inta aan kaa doonayay. waxaadna aakhirkaaga ku gaalowday rabbigaaga. anigu bari baan kaa ahay. anigu waxaan ka baqayaa rabbulcaalamiinka. kadibna shaydaankii waa uu isaga tagay kadib markii uu dulleeyey. boqorkii ayaana ciidankiisa ku amray barsiise in ay dilaan, halkaas ayayna ku dileen.
wuxuuna ku dhintay khaatumo xumo. allana subxaanahu watacaala wuxuu yidhi: kamathali shayطaani id qaala lilinsaani ikfur falama kafara qaal innii barii'un mink innii akhaafu allaha raba alcaalamiin fakaana caaqibatahumaa annahumaa fi nnaari khaalidayn fiiha wadhalika jazaa'u الظaalimiin. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا وأحسن خاتمتنا وقنا واصرف عنا شر ما نتخوف برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.